runtii caqabad badan ayaan wajahnaa marka aan doonayno dhowr iyo 30 sano kadib meel dawladdu lahayd inaan gacantii dawladda ku soo celino oo aan dib u dhis ku samayno si adeegyadii ay bulshada ugu qaban jirtay ay markale ugu qabato ama dad hamiye ha ahaado ama dad dukumeenti been abuura u samaysta ha ahaado ama dad si sharci darraa u haystay ha ahaato waxay adeegsadaan marka barabagaan iyo yani goobihii dawladda la gadanayaa iyo wixii uun xun oo bulshada aan qalbigeeda u roonayn marxalad siyaasadeed oo kala guur ah barabagaankii hawada isqabsaday ayaa waxay noqdeen wax badan oo niyad-jab ku ah dib u dhiska iyo horumarka gobolkan Banaadir waxaan rabaa mudanayaal iyo marwooyin inaan halkan ka caddeeyo maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda hadda joogtaba waxaa ka go'an 1 mitir oo dawlo ay leedahay ama dad leeyahay inaan dan gaara loo qaadan haddii arrintaasi ay jirto oo barabagaan iyo siyaasad meel ii dhige si dhaba ay jirto cidda lala soo xiriiraya waa aniga idin la hadlaya laakiin kalsooni 100% ayaan ku qabaa inaysan haba yaraatee jirin halkan waxay ka mid ahayd meelaha barabagaanka ba'an laga fidiyey maantay xarijarkaanaan filayaa in lagu bogsoon doono goobaha kale ayagana sidaasoo kale ayaan meel fagaara ku muujin doonaa inay leedahay dawladdu lahayd dawladda gacanteedina lagu haayo annaguna waajibkii nooga aadana aan ka gudin waxaa socda dhismaha waddadan kala qaybisa Xamar Jajab iyo Xamar Weyne oo ka soo bilaabata jaamacadda ummadda ama Shabeelle socotana ilaa isbitaalka Martini qayb weyn ayaan hore soo dhisnay dhamaystirka qaybtii kalena gabagabow naga yahay taasina waa qayb dib u dhiska iyo horumarinta gobolka Banaadir ka mid ah waxaan rajaynaynaa tallaabaha aan qaadayno oo horumarineed inay bulshada hadda joogta iyo ubadka soo koraya iyo kuwa dhalan doonaba ay munaafacaadsan doonaan caqabadka aan la kulanno ayay ka mid tahay meelaha aan dhisno oo aan bulshadu u bislayn dhooritaankeeda oo wadda laamiya oo malaayiin dollar ay ku baxdo aan aragno ayadoo si fudud tubooyin looga disiyey oo yani la jeexay waxaan ka codsanaynaa bulshada gaar ahaan kuwa ka shaqaysta howlahaas inay nala gartaan nalana dhowraan danta guud iyo danaha dadweynaha